jasiiradda Malta ayaa waxa ay sheegtay in 3 ka mid ah dhalinyaro Soomaaliyeed ay maxkamad soo taagi doonto waxaana dhalinyarada lagu eedeeyay in xatooyo ay sameeyeen. booliska jasiiradda Malta ayaa waxa ay sheegeen in muddo 3 bilood ah oo ay raggan daba taaganayeen ka gadaal hadda gacanta lagu soo dhigay waxaana la warinayaa in dhalinyaradani loo haysto boob ay ka geysteen mid ka mid ah dukaamada ku yaala wadanka jasiiradda Malta la yiraahdo. Inkasto ilaa iyo hadda laamaha ammaanka Malta aanay si dhab ah u soo bandhigin dambiga ay dhalinyarada ku hayaan haddana waxa ciwaan looga dhigay kiiska dhalinyaradan falxatooya. dhalinyaradan Soomaaliyeed ayaa da'dooda isugu jirta inta u dhaxaysa 26 ilaa iyo 24 waxaana la warinayaa in maxkamad ku taala jasiiradda Malta maanta oo markaasi Talaado ah la soo taagi doono. haddii ay mutaystaan xabsiyo dhaadheer waxa laga yaabaa in markaasi qaranada u doodaya ay raacfaan qaataan. wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dhowr mar oo hore waxa sidan oo kaleeto dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku xirnaa jasiiradda Malta ay u soo deysay iyaga oo laga soo dejiyay magaalada Muqdisho. xukuumadda ilaa iyo hadda si dhab ah uguma aanay hadlin dhalinyarada Soomaaliyeed ee lagu maxkamadeynayo jasiiradda Malta. boolisku waxa ay sheegeen in mid ka mid ah markhaatiyaasha markii raggani ay dhibaatada geysanayeen ay maxkamadda goobjoog u keeni doonaan waxaana intaasay ku dareen in raggan falka markaasi xatooyada ah uu ku cad yahay laamaha ammaanka iyo garsoorkana markaasi iyaguna ay shaqadooda gudanayaan. dhalinyarada Soomaaliyeed ee inta badan u haajiraysa dalalka caalamka ayaa meelaha qaar waxa ay ka mutaysanayaan dhibaatooyin kala duwan. jasiiradda Malta sidan oo kale waxa ku xiran dhalinyaro Soomaaliyeed oo hore looga soo eedeeyay in ay markaasi ahayeen burcadbadeed inkastoo dawladda Soomaaliya ay hore u diiday in raggaasi ay burcad ahaayeen haddana maxkamadaha jasiiradda Malta ayaa dhalinyaradaasi Soomaaliyeed xabsiyo dhaadheer ku xukumay. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena saar subscribe si aad u daawato xog walba halkan soo dhigno.